kulanti waxaana wanaagsan dhammaan baad ku xiran janalka kulmiye technology korsadan waa korsay c++ casharku waa casharkii 32 maanta waxaan qaadanaynaa array waxyaabo kale oo kusii saabsan casharkii hore waxaan soo qaadanay haddii aan array aan qabsano inaan isla markii aan durbadiiba aan ku shubno xoog balse markastoo xogta aad ku shubaysid ma ahan mid adiga kaa imaanayso marmarka qaar xogtaada waxay ka imaanaysaa qofka isticmaalaha kombiyuutarka sida badankaaba maanta waxaan doonaynaa inaan array aan qabsano kadibna aan ku shubno xog ka imaaday qofka isticmaalaha kombiyuutarka si taasi u dhacdo waxaa qabsanaysaa array sidaa ogtihiin array wax kastaa laga dhigi karaa in data type waxaa leeyahay string kadib kan waa data type-ka oo arraydiina kadib waxaad sheegaysaa magaca waxaan leeyahay magacyo sababtoo waa jamac maxaa yeele magacyo badanaa rabaa kadibna waxaad furaysaa square bracket kadibna waxaad ku shubaysaa xajmiga amba inta ay arraydan qaado okay qaabkan waa samey kartaa haddii aad rabto hal variable kale waa qabsan kartaa kaasoo ah xajmiga kadibna aad dhahdo 5 kadibna aad ku bedesho xajmiga maxaa yeelay hadhow variablekan waxaad ka bedeli kartaa meel alaali meesha aad rabto kadib waxaan leenahay qofka okay kadib waxaan qabsanaynaa waxaan rabnaa qofka inaan weydiino horta joog waa laga horeeyaa waxaan leeyahay fadlan okay geli magacaaga kadib wuxuu gelinayaa qofka magaciisa kadib markii uu geliyo isla waxaa dhihi jirnay magacyo okay sidaan dhihi jirnay balse maanta wax ayaa bedelan taas ayaan doonayaa fadlan soo kadib si haddii aan rabno inaan magacaan weydiino muddo fara badan maxaa yeelay arraydan waxay awood u leedahay inay xarayso xajmiga waa meeqa waa 5 inay xarayso 5 magac waxay awood u leedahay inay xarayso 5 magac si aan u xarayno 5 magac waa dhigi karnaa inaan 5 mar aan weydiino koobiyeno kadibna aan dhahno basti kadibna aan dhahno basti kadibna aan kuwan bedelno balse waxaa jiro qaab kale oo ka fudud anigoo isticmaalaya labadan line waxaan isticmaalayaa qaab kale oo ka fudud qaabkaas oo ah adigoo isticmaalaysid for loop amba while loop mid kastoo aad amba do loop mid allaale iyo midkaa rabto hore ayaan usoo baranay waxaa leedahay for kadibna waxaad sheegaysaa variableka aad rabto inaad ku xakunto for loopkaaga kadib waxaa leeyahay tiriye wuxuu la egayaan leeyahay eber maxaa yeelay array markasta waxay ka bilaabataa eber kadib waxaa leeyahay tiriye inta uu ka yaryahay xajmiga okay tiriye plus kadib tiriye aan furo parentheseska aan furo curly braces kadib waxaa qaadaysaa labadan line markii aan qaado waxaan geenayaa dhaxla balse weli wax ayaa noo dhiman sidaa ujeedid waa kan waxaa waaye geli magaca kadib magaca marka uu geliyo kadib magacaan hal variable ma waa array si aan ugu sheegno positionka uu gelinayo waxaad u baahantaa square bracket kadibna waxaad gelinaysaa tiriye meesha oo maray waa adiga oo dhahday tusaale tutorialkii hore tusayaal mar tutorialkii hore waxaan qabsanay intii IDs kadibna waxaan dhahnay iska dha toriyo kala camalad waa tusaale kadibna qaabkan waan soo aragnay 2 3 4 qaabkan waan soo aragnay qaabka kalena wuxuu ahay asnaada isla aragno qaabka kalena wuxuu ahay IDs inaad dhahdo kadibna u sheegto positionka 0 kala aad dhahdo kadibna aad ku shubto waxa la liiba xaran kana waa sidii oo kale maxaa yeelay kan waa la turjumaa waa adigoo dhahday position 0 ku shub inta waxaa kusoo shubtay meeshaan waxa aad kasoo qaado waxaa ku shubtaa position 0 adigoo dhahdo kala waaye hore ayaan soo sharxay haddii aad rabto casharkii hore ku noqo waa 31 okay kadib qofku wuxuu soo xareynayaa dhammaan magacyadii hadda haddii aan rangareeyo balandho ran sidaa ujeedid waxaa la weydiiyey fadlan geli magacaaga cali andho number 1 okay maxamed andho number 2 iska dhaw faarax number meeqa waaye 1 2 3 4 number 4 iska dhaw jete number 5 iska dhaw iqro sidaa ujeedin waa 5 mar waana sax uu shaqeeyay arraydan waxay haysaa 5 variable wax kusoo xaran 5 magac
si aan u soo bandhigno dhammaan magacyadii aan ku xarayna haddana waxaan u baahannahay for loop haddii aan rabno hal waan u isticmaali karnaa bal aan idin tusiyo magaca lamiise iska dhawo magaca koowaad magaca waa okay magacyo kadibna aan dhawo zero aan soo bandhiga magaca koowaad si aad u jeediin qaabkan waan isticmaali karnaa end line qaabkan waan isticmaali karnaa bal hadda aan aragno kaliya waxaa soo baxaya magaca koowaad base waxaa rabaa dhammaan inaan magacyada arko taasna waan isla arkaynaa iyadana qaabka loo soo bandhigo aan dhawo cali maxamed jete fara iqro sidaa u jeediin magaca koowaad magaca wuxuu dhahay magaca waa iqro maxaan dhahay magaca waa iqro صح magaca waa iqro waa saxan yahay magaca waa iqro sax maxaa yeelay variablekan markastoo isbedelayo waxaan ilmaamay inaan variablekan hadaayo marka aan sharxay inaan booskiisa dib ugu celiyo kaasoo ahay tiriye maxaa yeelay positionka uu isbedelaa hadda hadaayo waxa dhacay waxay ahaayeen sidan oo kale magacyo kadibna waxaan dhahay zero wuxuu la eegay oo kale iska dheh iqro kadibna semicolon markasta oo loopkan oo tiriye isbedelo position 1 oo noqdo meel kasta waxaa lagu shubaya iqro zero waxaa lagu shubaya iqro position variablekan la isbedelayo ugu dambeyn meeqo ku imaay iqra lagu shubay waa laga bedelay zero iqra lagu shubay waa laga bedelay waa sidan oo kale kow waxaa ku shubnay iqro kadib mar labaad waxaa lagu shubay maxamed kadib waxaan ku shubnay cali markasta variablekan uu isbedelaa kow kana lagu shubay okay hadana si plus kana arkay waa laga bedelaa hadana iqra laga bedelaa kana lagu shubay kana hadana laga bedelaa cali lagu shubay marka ugu dambeysana waxaa ku shubnay iqro variableka markastoo isbedelo wuxuu isticmaalaa kan ugu dambeeyo waxaan ilmaam kaliya meeshan variablekaas oo ah inuu positionkan isbedelo zero noqdo marna 1 oo noqdo marna oo noqdo 2 marna oo noqdo 3 balaadan isla aragna sida saxda waxaa soo bixi doona kan ugu horeeya aan ku bilaabno haday xoogaa ilmaam sheera ay gashay cali waxaan u baahnaa inuu cali soo baxo okay maxamed fara jete iqro sidaa u jeedin maxaa soo baxay cali okay waa saxayaan balse waxaan rabaa dhammaan inaan arko magacyada oo dhan si aan u arko waxaan isticmaalaa for loop kadib haddana waxaan qabsanayaa inti three okay halkii variableka hadaayo waa qabsan karaa maxaa yeelay variablekan wuxuu ka jiraa keliya halahan scopekan bisu ka jiraa wuxuu ka jiraa scopekan ka banaankiisa variablekan c++ way tirtire mar labaadna waa si isticmaali kartaa balse variablekan wuxuu ka jiraa scopekan ilaayo mainka dhamaadkiisa mar labaad ma qabsan kartaa balse kan waa isticmaali karaa kadib waxaa leeyahay asigana zero kadib waxaa leeyahay inta uu ka yaryahay xajmiga kadib waxaa leeyahay tiriye plus tiriye waxaa ku daraya asigana plus okay kor u qaadaa tiriye plus kadibna waxaa furaysaa kaas parenthesis kaas furaysaa kadib kan ayaan soo qaadayaa gudaha ayaan keenayaa magaca waa okay hadda hadii aan everton ugu tago magaca waa cali oo wuxuu daldalaa meeqa jeer 5 jeer balaan isla aragno ama midka aan ku bilaabo kale maxamed oo kale iska dhigay cali fara iqro jete position koowaad waa meeqo waa ever magaca waa maxamed si macnaha positionkan uu isku bedelo oo magacu waa maxamed marna waa cali si uu dhaw waxaan u baahnaa inaan gelino tiriye okay balada fiiri sida saxda ugu soo bandhigaa si aad jeedin aan galsho okay si aad jeedin magacu waa maxamed magacu waa maxamuud magacu waa cali magacu waa iqro magacu waa cali
soo bandhigtay saxda balaan hadda aan hal mar durmaro si aad si fiican ugu fahantid markuu ugu horeyso koodkeen inta ayuu imaanaya leen baa leen u sharxa ila soco sadar intuu imaanaya waxaa la qabsanaya variable-ka waa meeqa waa 5 okay kadib waxaa la qabsanaya arraydan kaasoo awood u leh inay xarayso 5 magac arraydan maxay awood u leedahay 5 magac variable-kana la turjumaa inta waxaa lagu bedelayaa 5 magac waa adigoo sidaan oo kala dhacday balse anaga hadda waxaan iska isticmaalanaa variable waa sidaas oo kale kadib inta ayaa la imaanaya waxaa leeyahay tiriye variable-kana la qabanaa tiriye ever wuxuu leeyahay ever okay kadib waxaa leeyahay tiriye iyo xajmiga meeqa waa 5 tiriyena meeqa waa ever shanyaar ever ayar okay inta la imaanaa kadib waxaa soo bandhigaa fadlan geli magacuu gelinaya wuxuu soo gelinayaa waxaa ku shubtaa leeyahay magacyo ku shub kadibna position-kan ku shub 3 meeqo maray waa ever position 0 waxaa ku shubtaa wixii la soo geliyay tusaale waxaa la soo geliyay kale iska cali position 0 waxaa lagu shubaa cali kadib koodkeen intuu tagaa tiriyaa la bedelaa 3 meeqo noqonaa wuxuu noqonaa 1 kadib intuu imaanaa 1 iyo meeqa waa xajmiga meeqa waa 5 1 iyo 5 yaar hal ayar kadib inta la imaanaa magac geli kadib magacu soo gelina waxaa lagu shubayaa position-kan 3 meeqa waa 1 waxaa ku shubtaa leeyahay magacyo 3 inta meeqa lagu bedelayaa 1 inta meeqa lagu bedelayaa 1 kadib lagu shubaa waa sidaas oo kale tiriyaa la turjumaa okay kadib inta waxaa lagu shubaa magacii lagu shubaa aan soo gelin kaasoo tusaale iska dheh maxamed oo kale iska dheh maxamed lagu shubay inta la tagaadana tiriyaa la badinaa 3 meeqo noqonaa 3 wuxuu noqonaa 2 noqonaa 2 iyo 5 yaar kana ka meeqo waay waa hadda meeqo 2 noqday xajmiguna waa 5 2 iyo 5 yaar 2 yaar magac geliya leeyahay kadib wuxuu soo gelinaa kadib wuxuu soo geliyay waxaa lagu shubaa arraydan position-kee lagu shubaa ama boos-kee lagu shubaa booska waxaa lagu shubayaa labaad 3 meeqo waay waa 2 waxaa lagu shubayaa booska labaad kadib intuu imaanaa tiriyaa lagu daraa 3 meeqo noqday 3 inta la imaanaa waxaa leeyahay 3 iyo 5 yaar 3 yaar soo geli magaca loo soo bandhigaa kadib wuxuu soo geliyay waxaa lagu shubayaa arraydan kaasoo position-kee lagu shubaa 3 meeqo waay waa 3 booska saddexaad ku shub kadib inta tag 4 noqonaa 4 iyo 5 yaar 4 yaar inta la imaanaa magac geli magaca qofka waxaa hadana wuxuu soo geliyay waxaa lagu shubayaa arraydan booskee lagu shubayaa booska afraad inta la tagay 5 iyo 5 yaar 5 kama yaro sidaa darteed for loop-kan dhan waa laga soo baxayaa haddii laga soo baxo wuxuu imaanayaa intuu imaanayaa kadib wuxuu arkayaa hadana for loop okay aan furo kadib wuxuu arkayaa for loop kan kadib waxaa leeyahay intii tiri variable-kan ma uu dhammaay maxaa yeelay waa scope-kan scope noora ayaan soo sharxay waxaa leeyahay tiri wuxuu la mid yahay ever kadib waxaa leeyahay tiri iyo xajmiga yaar xajmiga meeqa waa 5 tirin waa ever 5 yaar waa ever sida daawo kala camal waaye hal wareegis sharxa hala kale ku cesho video-ga aad fahmaysid ever iyo 5 yaar ever yaar kadib inta la imaanaya waxaa leeyahay magac waa okay magacyo tiri position-kan soo bandhig position-kan maxaa ku jira position-kan waa ever wixii lagu soo shubay waxaa la soo bandhigaa halaan dhan waa la fasiraa wixii ever ku jira lagu fasiraa haddii tusaale waxaa ku shubnoo kale iska dheh cali oo kale ku shubnay intaan dhana waxaa lagu bedelayaa cali sidaas camal laga dhigayaa laakiin shaqadaas waxaa qabanaya C++ video-ga like saar channel-kana subscribe saar si aad ugu soo biirto baada kulmiye technology mahadsan